gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug iyo wafdi uu hogaaminayay oo toddobaadkii u dambeeyay kormeer ku aadan baahiyada dhanka adeegyada bulshada ku marayay deegaanada gobolka mudug ee galmudug ayaa gaaray deegaanka Bandarqaali oo kamid ah deegaanada dhaca dhinaca waqooyi bari gobolka mudug isla markaana masaafo ku dhawaad 60 kiiloomitir u jira magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. gudoomiyaha gobolka iyo wafdigiisa ayaa markii ay gaareen deegaankaasi Bandarqaali waxa si diiran ugu soo dhaweeyay maamulka iyo waxgaradka deegaankaasi oo ay la kulan balaaran oo looga hadlay xoojinta iyo wada shaqaynta maamulka. gudoomiyaha deegaanka Bandarqaali Sheekh Muxyidiin Axmed Garre oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa ka warbixiyay xaaladda deegaanka iyo horumarka ka muuqanaya deegaanka Bandarqaali oo uu sheegay inay tahay mid ka dhalatay isku tashi ay sameeyeen bulshada deegaankaasi Bandarqaali. waa degmadii adoo xilal badan galmudug ka soo qabtay oo mar agaasimaha waxbarashada dawladda galmudug ahaa xilal badan ka soo qabtay degmadii waxa weey wax badan ah ka soo qabatay degmada Bandarqaali bulshada reer Bandarqaali intii ogay waa ogtahay inta kale hadda maqashiinayna directive wax badan buu ka soo qabtay degmadan gudoomiyuhu oo waxbarashada hadda arkaysaan oo kale oo hadda aragteen sida aragteen quruxda iyo sharafta aragtay leh ugu badnayd waxyaalo uu soo qabtay iyo waxyaalo kale oo badan anagu aan ognahay haddana waxa weeye adigu gudoomiye gobol noqday farxad weyn bay noo tahay wax ka weyn baa ka sugaynaa ilaahay idankiis ilaahay ha ku soo dhiibo waxyaalaha marka halkaan aan ka codsanayno gudoomiye oo miiska noo saara waxa kamid ah saldhiggii booliska oo degmada Bandarqaali ay dhisatay inta ay qaban ka dhay 40 ay wareegsatay darbigii labadii qolo xabsiga ay dhisatay ciidankii ay tababaratay oo ay tababaratay ciidankii uu tababartay oo intaasoo bilood ay bixinahayeen ninkii tababaraha iyagu mushaarkooda bixinahayeen ciidanka labiskiisa ay bixinahayeen garaamkiisi iyo quutu daruurigiisa yoomka ah ay bixinahayeen ayadoo cid ka gacan siisay aan la arag booliskii meeshuu ku joogaa kaar ma leh meeshiina qayb baa ka dhiman waxba ka dhiman oo ku tusi doonaa gudoomiye guryihii garsoorka way dhiman yihiin derbiga laftiisu waa gaaban yahay 2 mitir weey in la dheereeyo u baahan yahay guryo kale in lagu daruur rabaa lamar 1 waxa weeye gudoomiye intaas waa codsanaynaa waana ku geyn doonaa insha Allah taala lamar 2 lamarka labaad oo aan codsanayno waxa weeye gudoomiye wadadan aad soo madheen maantay oo Gaalkacyo ka timaada oo ku magacaaban jidka wadnaha ama wadada Sheekh Muxyidiin oo ka soo bilaabata ceel Faarax Geedi ilaa Bandarqaali bulshada ayaa samaysatay aqoon ba adigu u leedahay laakiin dad badan aqoon u lahayn baa maqashiinayna ayaga bilowday haddana waxa loo isticmaalaa wadadaas ilaa afar waaqo ilaa budbud ilaa dhinowda ilaa meesha la yiraahdo banaan oo dhan ilaa Hiingod ilaa wadan badan baa loo isticmaalaa macaadahooda dhan wadadaas waxaan rabnaa anagu marka intaasaan ka qabanay 35 kiiloomitir weey gudoomiye gacmaha iyaga ku falanay iyo hantida iyaga waxaan rabnaa jay in la kaga dhigo laami hadda oramayno midda laamigu dambu u imaan doona laakiin ciid bay xoogaa naga yeelata meelo waa soo madheen waxaan rabnaa codsanaynaa dawladda waxaas waxba lama aha wax ka weyn bay qabataa 35 kiiloomitir jay in la kugu shubo annaguna qayb baan ka qaadanaynaa xoogii baan keenaynaa ragii jayga rari lahaa shidaalkii baan bixinaynaa contribution baa la yaala laakiin in wadadaas xoogga noo saaro oo jay nala kaga dhigo ilaahay idankiisna waa lamarka labaad lamar 3 gudoomiye ilaa hal maalin bay ceel joogtaa iyo waftiga uu hogaaminayo waxaan rabnaa oo lamar 3 noo ah hadii ilaahay idno isbitaalka oo aan ku goyn doono oo hadda balaarintiisi aan rabno galabta inaan dhagax dhigto oo dhagax 70 lowra bulshadu ay rogatay oo 4000 oo hadda shaqadiisi ay aan rabno galabta inaan bilowno oo aan rabno inaan noo dhagax dhigto bulshaduna hadda ay ayadu wado oo rabto inay bilaabato inaan noo dhagax dhigto inta ka dhimanna aad noogu gudbiso gobolka iyo meel kasta oo aad taaban ka dhigo isbitaalka aan qaybna dawladda galmudug naga qaato oo gobolka gobol ahaan waxyaalo kale baahiyo aan sii gargaranayna waa jidhaa lamarka afraadna waxaan ku soo koobaynaa ardadii degmada Bandarqaali
oo xilliga aad ogeed aad maaragtay juhdi badan aad wax ku bixisay hadda 22 in la igu sheegaan u malaynayaa baa marka 22ka kuwii dugsiga hoose dhexe annaga la leecayna ardadaas hadda waxay joogtaan markaan in gaalkacyo inta waalidkoodii xaflad loo qabto la yiraahdo qofba meeshuu rabo ilmihiisa kala baxo qofkii muqdisho u dirsan lahaa qofkii gaalkacyo u dirsan lahaa qofkii u dirsan lahaa meesha la yiraahdo haddii ilaahay Burco iyo Hargeysa iyo Boorana jaamacadaas iyo dugsidaas sharaf darro nagu tahay degmadii wixii looga ka soo marnay gudoomiye ama aan ka soo marnay ardadii markay dugsi sare ka baxdo dugsi hoose dhexe oo shahaadada helaan qofba meel inuu hawaabo sharaf darro nagu tahay markaan mar ka midana adiga iyo wasiirka waxbarashada haddii ilaahay Ibraahim guureeye waad garanaynaa waa dhagax dhigteen marka guryana aan kareyna haddaan rabnay waxaan rabnaa in la ka saacido oo gacan la ka siiyo gudoomiye ardadaasi aysan gaalkacyo iyo meelo kale u kala wareegin ardadaas 22ka oo hadda soo baxdo dufcadii u horeysay ardadaasna waxaan rabnaa in indha dheer gudoomiye u yeelato macallimiintooda hadday tahay iyo hooskoodii oo markaan ka hor aad dhagax dhigteen intaasaan ku soo koobayaa maxaa yeelay inta kale waxaan u hambaynayaa degmooyinka kale iyo gobolada kale iyo dad badan oo Soomaaliyeed baa maaragtay ka dhaxaysa haddaan wixii oo dhan sariya baar u tirino way dhib badnaanaysaa ceelka kale waa naga halaysan yahay hadda maanta waa lagu ooman yahay bamka ku jira docol baan ka soo qaadnay waxa weeye gudoomiye waa baahi jidha oo toobal caaran u soo qaadnay ceelku wax bama male ayadana wasaaradda haddii ilaahay iyo hay'adaha ku shaqada leh inaad arintaas noogu cuslayso waa rabnaa بندرغالي واجب بيقول لهذا إنه يماده كوا كسر شيء واجب بيقول لي هنا نتقنه نصيب كوا نسوي كل شيء حكتي وحنو كده جيسني قدوميها دجمدة حكتي ونسي إن بدلنا خلاص ما نقول رمي دونا وحنو جعلنا وجدي وعتاينا وعن حكتاس ميلها اللي تجايره waxaan rabnaa inaan wada tagno xogta oo noo sheego mid walba aanu fiirino aan hor dhigno dhammaan caalamka oo dhan laga fiirsado telefishinada degmo walba baahida ay qabato in laga wada fiirsado oo cid walba ayadoo ay waxna weydiin annaga intaysan noo imaan ay ku soo dhiirato baahida markay aragto ujeedada iyo danta horta waa noocaas sida aad ii soo dhaweyseen aad ii sugeyseen waan kaga mahad celinayaa dhammaantiin waxaan leeyahay ujeedada kale oo aan ku darsanahay waxay tahay dad walba horta ayagaa wax qabsada oo idinku baraarujinayaa hadduusan qofka asagu wax qabsan cidna wax lama qaban karto qof walbana maanta federaal baa la marayaa federaal macnaheeduna waxa weeye in cid walba ayadu isku tashata wey wixii dowlad laga helayo ama hay-ad laga helayo meel walba waa loo marayaa laakiin awwaluhu horta dadku inay u baraarugaan inay ayagu isku tashadaan midka baadiyaha jooga hadduusan u baraarugin magaaladii uu imaanayey ee uu shaaha u soo dooranayey haddaysan isbitaal lahayn haddaysan lahayn saldhig lahayn haddaysan waxbarasho lahayn inay dhibaato ayada u tahay asaga u tahay inuu ogaadaa la rabaa ee uu ku fakaro yidhaahdo neefkan hooya ha lagu daro midka magaalada jooga inuu yidhaahdo lacagtan dolarka iga qabta ha lagu daro haddaan saas loo fakerin oo aan wax laysku dardarsan horumar markaas magaalooyin badan hadda waxaa jira ayagu iskoodu dhistay maca isbitaaladii qalabeeyey maca qaybtii qaliinka keensaday hadda isbitaal gawaan oo kaleeto wax ka maqan ma jiraan dowlad baan wax ku darsan hay-ad baan wax ku darsan waa magaalo in lamida idinka markii tiro la fiiriyo iyo deegaanna idinkaa ka badan tiro ahaan marka hadda la fiiriyo maanta dhomaan tagnay dad yar baa soo baxay maanta idinkana annagoo duur waqtiga duura nimid waa joogteen waa raha marka dadku inuu horta asagoo isku tashado marka ay isku tashatiin wax badan baa soo baxaya aniga taas waxay iga tahay waa wacyigelin laakiin waxqabadkayga uga hari mayno dadka isku tashada kaliya oran mayno geed dheer iyo geed gaanba waxaan u fuulaynaa waxyaalaha la sheegay si aan wuxuun uga qaban lahayn mid ka mida saan u hirgelin lahayn baanu fiirinaynaa focuska waxaan saari doonaa bulshada waxa u daran waa caafimaadka caafimaad qofka hadduu wax kasta helo
oo cunto kala haysta helo haddii inta caafimaad la waayo gabadha kalaamisada ku soo boodin leeyahay baawur $300 loo kiriyo gaalkacyo loo qaadee waa dhibaatay leedahay ninka sidoo kaleeto qofka xanuunsan baawur loo kiriyo oo loo qaado gaalkacyo dhib bay yeelanaysaa laakiin haddaan isbitaalka focuska wada saarno oo aan dal iyo dibad iyo midka meel kasta jooga oo baadiyaha jooga aan wax isku dardarsanno oo hay'adahan wax uga keensanno oo caafimaad buuxa helno waxaan naga harayaa dhibaatadii aan ka fakaraynay qofka caawa lagu soo boodo in baabuur loo raadiyo xataa la waayo magaalada baabuur inuu joogo oo qeeldaan gaalkacyo loo dirsado oo 50 kilomitirna soo socdo 50na sii socdo qofkaas dhib badan baa ku soo saacidaya marka waxaan focuska wada saarnaa annagoo wada jirna inaan focuska wada saarno caafimaadka oo aan kii ar heli kara kii $1 heli kara kii $1 heli kara inaan dhammaantan isku darsano horta diyaar mawna ugu dambeynna gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa kormeeray xarumaha waxbarashada iyo caafimaadka oo ah kuwa intooda badan ku hirgalay xilqaan ay sameeyeen bulshada deegaankaasi oo haatan wada dhismaha xarun caafimaad oo lagu kordhiyay xarunta hooyada iyo dhallaanka ee deegaankaasi Dirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalkacyo.